حلية علي أقوياهن كي هبل بدن هردة أديدي أو حاس كيسي كسو هذا الشيء فضلا حداد إيقو عصبت هاي فلو يصوده يا سلام إن بدن كم هتسند فلوغا إيا شرقرين تالا قوليسو البغرتوي حلية علي أقوياهن علميجي سحق لها عن دافين هذا الكستو أو أفكيسا كسو بحا كفر رهب لها سوماليات naagu wax ay ka necab yihiin ma jirto nin aysan khaldi kareynin okay ninkaasaan rabaa inaan adiga ka dhigo okay ha u malayn naagu inay bilaash calacalayaan oo inayaan no barada way fahansan yihiin inaan fahansanahay way fahansan yihiin adiga wax ku barayo waxaas laga soo horjeeda see wax u baray raggaan see nagu soo dhisaysa adaan rabaa inaan ku dhiso barada ma taqaana hablaha uu had iyo jeer ka hadlayo waa kuwii midabkooda dahabiga ahaa ee dunida dhif iyo naadir ku ahaa daymada ilqabadka lehna dunidu ay ka tirisay tix geeraar ah kadib markii ay la indhadaraan dareen gabar Soomaaliyeed oo geeleedii miiga ku raacanaysa sanadkii 1948 tixdaas oo ahayd sidan qurayshtii haweenkaay quruxdii gabdhahay qoomka ku nool dunida quruxdaada ay tilmaameen gabdhihii sharafta badnaa ayuu maanta Xalliye Cali waxa uu la meel dhigayaa bisad hoogayay waan idin salaameeyo naagna ma rabto inaad ogaatid markasta oo aad bisada bursato inay bisadu kaasi cararayso naaguna waa sidaas oo kale markasta oo aad hayso bisadu waxay cuni lahayd iyo bisadu meeshay seexan lahaydna waxa waay bisadu way ku imaanaysaa aday dhabtaada ku seexanaysaa nin ahaan markaad qiimo isu yeesho markaad fahantid systemkan iyo shaxda naagaha okay ma bursanaysid mad ka daba cararaysid inkastoo hablo badan uu hurdada u diiday haddana waa single father haysta 3 aruur oo asagoo korsanayo kaas oo ku badan cudurka walwalka kuna laba jibaaran bidaar u diiday inuu la haasawo hablo badan inta ka rog oo laba saar isjiri ayuu lacag doorbiday balse maxaa ka raacay ninkan ninkayga waay ana soo kiciye beeno badan iyo kaarta badan iyo adduunyo badan wax kaga saacunay waxaan dina farcaro oo dhala fartii carro ninkan aanu geystay markaan fahmi waay oo igu waasho waxaan ku dhahay habeen walba inta soo kaco oo dhala lacagtii baad iga cuntay garoobad ahaan jirtay waxaad ahaan jirtay war garoon ma ahayn adaan waxba wadane alaab fiican wadane alaabta yareed inaad ilaahay biyaha wax kaaga siiyo buuray u siiyo xuma wadatida maaliga fadhiiso ninkan oo koontooyinka uu ku leeyahay TikTok iyo YouTube ay ku xiran yihiin rag badan waxa uu moodaa in fikirkiisa ay ku raacsan yihiin balse xaaladdu marka ay halka joogto gaaladu waxa ay tiraahdaa another level taas oo micnaheedu yahay boqolow ka guur oo kontonley u guur marba haddii hablaha Soomaaliyeed aad la xifaaltamayso ayna ku soo jawaabayaan warbalsaana ii maqal horta dhaga ma sidataa maqalkuna ma saxan yahay yaa lacagta ka siray yaa soorta ka cunay yaad maalin sooriyeysay waxay hoosi loonaaday yaa saqiiradeenu iyo sabiyada